السلام عليكم أصحابتك وحرم فاتوش فملي سو دوادا aad baad u mahadsantihiin ugu xirantihiin maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho arrintii qaraxyadii qaracanka badnaa ee ka dhacay Muqdisho taas oo aad maanta loo hadalhayo niyuusyada caalamka dhan ay ka hadlayaan waxa dhacday maanta laba qarax waxa ay ka dhaceen qaraxii ugu hore wuxuu ka dhacay area-dii 2017 uu ka dhici jiray 5 sano ka hor October waa waqtigan oo kale 5 sano ka hor waaye 2017 October oo dadka badan oo 500 gaaraya ay ku dhiban jireen ayaa waxa la yiraahdaa 2 PM markay tahay waa 8 saac markay Soomaaliya u tahay waa waqtiga qadada ama qada laga soo baxo ayaa waxa la yiraahdaa waxa la abaarsaday education ministry meesha oo waxbarashada waaye wasaaradda ayaa waxa la yiraahdaa la beegsadeen qaraxii ugu horeeyay uu ka dhacay meeshaas oo de waa meel aad wada busy waaye dad baa ka shaqeystaa la yiri waa meel yani aad looga wada loo maro waaye oo transportation kana ay maraan waa garan kartaa baabuurta dadka sidaa haday ahaan la bajaaj haday ahaan la bajaaj suuga haday ahaan la dad wadada ku shaqeysta haday ahaan dad wadada ka toogsada haday ahaan la bajaajyadiiba arday wax kasta iskugu jiraan aad baan uga qaracmo wallahi maanta waxaan ku hadlay aqoon way afka ee juuqda ee gabay waxa leeyahay markii qarax ugu horeeyay dhacay waa aragteen qarax markuu dhaco dadkii waxay noqonayaan way kala cararayaan hadda wixii fikan kara way cararayaan haddana waa la soo noqonayaa oo waxa loo soo noqonayaa de magaaladii dhan ee qab ku soo dhaxaysa in dadkii la caawiyo dadku dadkooda raadsadaan meeshii la caawiyo ilaan gaari kale ayaa yaalaalay meel maqaaxi laga qadaynayo horteeda ayuu yaala fiir maqaaxi markay taa waa arkaysa dad baa wax ku horgata dad baa hor fadhiya dad baa maraya markay dadkii u soo ordeen inay dadka caawiyaan dadkooda raadsadaan ayaa haddana waxa la yiri mid kale loo dhigay wixii ugu yaabka badneed aad ii xanuunjiye waxay ahayd markii la yiri ambulance imaadeen dad ka soo tagaya ambulance imaadeen wuxuu yiri ambulance keenay ambulance furay intaas oo qof oo dhaawac ah number buu sheegay intaas oo qof dhaawac markaan ku guray buu yiri oo meel kale la damcayna dhaqaaq oo meel kale la iiga wacay oo damcayna dad kala soo qaad ayaa waxa qabsato yiri kii labaad asay waa biibada ilaahay qofku ilaahay dila dhimanay asay waa biibu yiri meelaan ku dhacay gaarigii uu ku tusaa ambulance wada dadkii aawa dhaawaca xageeda waa loo dhameystira fiir la ilaaha illa allah muhammad rasuul dadkii waa loo si dhameystira waa dad in la caawiyo oo meel loogu guray kii kala eber ka dhigay marka dadkii waxa eber ka dhigay ambulance-yadu baabi'iyay dadkii la caawinayo ila dhexyaala dadkan gaariga meesha u dhex dhigayaan markay u dhex dhigaan meeshaasay haddana waxay uga faa'iideysanayaan dadkii wixii kale qisadii ugu yaabka badnayd aan ka dhageystay waxay ahayd waliba dad aan la hadla ii sheegeen gabar baa hooyadeed waxay ku dhimatay qaraxii ugu horeeyay bay hooyadeed ku dhimatay gabadhii way soo oroday waxay istiri Allah u naxariista ay ka dhan waxay istiri hooyadaadii balmeedkeed raadso ayadana kii dambe ayay ku dhimatay imagine ma qiso wiil kale oo wariye waaye la dhahay waxa la yiri hooyadiisii aabiis hadda ka hor ayaa saas kale diblay u dishay baa la yiri markii u dhinteen asaga iyo walaalkiis sanad ka hor ayuu walaalkiis u tacsiyeynay oo ka cabanay waa halkii wiil igu hooyo igu aabaha oo adduunka iga haray buu yiri South Africa ayaa tuugu ku dishay asagiina maanta dhintay bal imagine dad yani gumaad waxaan arkay nin oo kale oo ciidanka ah oo cunug yariis midaas baa aad beerka iyo xanuunjisay cunug yariis ayuu maxaa la jiray ninkii wada u leebriis hadaa taqaani wajigeeda hooyadeeda meedahan ka soo aqaad waa saqiir yar ilmo yar oo maxaan ku qiyaasay 2 sano ma gaarin baa Israa'iil waa sanad iyo bar iyo meelahaas wuxuu leeyahay hooyadooda meyd ayaan ka soo qaad waxba ma garanayso waxba dhinta ma garanayso waxba meyd ma garanayso hooyaa dhimata ma garanayso la ilaaha illa allah alla adduunka intee la aada alla dadka intee loo baxaya marka waxa sameynayeen waqtigaas ay dhacayaan waxa lagu leeyahay madaxweynaha iyo deelataliyaashiisa iyo waxa leeyahay waxay ka tashanayaan aalay sida loola dagaalami lahaa waxyaabahan dadka sameynaayo kale dadka saan u leeynaayo sida loola dagaalami lahaa loo cirib tiri lahaa ayakin waxaan bay ku faanayaan marka wax qof kasta wuxuu isweydiinayaa
واي isweydiinaya sabab ay ku dhacaysa sabab qof maanta muslim sheeganaya oo dhahaya diin baan leh oo muslim baan ahay miyuu dad rayid ah intuu soo laayo maanta qoslaya oo meel fariisanaya midaas ayaan aniga meel aan maskaxdayda uga jawaabo aan laa dadkii la wareystay wariyaashii la wareystay image waxa lagu leeyahay dadka meeshaas ku dhintay waxa u badan baa lagu yiri waa arday waliba especially waxa u sii badan arday iyo dad kastaba yihiin dumar ba u badan baa arday ba iskugu jiraan ilmo iskugu jiraan dumar waxa maanta la sheegay waxa u badnaa baa leeyahay dumar hadii tahay dadka dhintay haday tahay dadka dhaawaca oo la qaaday yani rag waa ku baabay laakiin waxa lagu leeyahay isku soo duuduubo waa shacab ma ahan uma badna dad waxa la dagaalamay ma ahan wax kale dumar waa meena waxay ku tusaysaa waa dadkii garab raratada ahaa oo shaqaysanayay oo meeshaas inay quturiyoonkooda ka dhacsadaan u fadhiyay iyo dadkii wadada mariyay oo arday haday ahaan lahayd haday qof kale ahaan laakiin waxa la sheegay maanta waxa meesha aadka ugu baabaa inay dumar u badnaayeen rayid inay u badnaayeen marka ilaahay ha u naxariisto dadkaas dad aad u fara badan waaye dad ayaa ilaa iyo hadda waxa leeyahay dadkoodii la baa lagu yiri oo baafinayaan inay dhaawac yihiin ogeyn inay dhinteen aan ogeyn waxaan ku dhahay bismillaah ilaahay oo rabbiyo dadka u gargaar ilaahow dadka u gargaar kulay maanta waxaan arkay qof ku qoray dhaha ilaahay xagee jirtaa ku aaway waxaan ma daawanaysaa allah wallahi dadka wax kasta waa iskaga hadlaaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa maalin kasta waa qayladaan laakiin qiyaama war jira maalin kasta waa qayladaan dhalinyaradii niyad jab baa lagu ridayaa dadkeeni qurbaha jiray oo rabay wadankooda inuu soo noqdaan niyad jab baa nagu ridayaa because maanta ana kale maxaa ku fikirayna inaan wadankii ilmaheeni geeno si noogu bartaan diinta si noogu bartaan dhaqanka qalbi jab dadkii ku nool horta maba isla barbar dhigi karnee qof kasta meeshiisu ku qalbi jabo qofkii meeshii jooga meeshiisii ku rafaaday dadkii anakii banaankii joognay waxaan leenahay wadankeena goormee hal maalin u noqonaysiin waxaasaan daawanaynaa the more aan damacna inaan soo baxno imaano wadankeena markii waxaan oo kale aan qalbadaaba ka dhimanaysa waxa la ilaahow caawi dadkii meeshaas joogay ilaahow caawi baa dheh bal adii aadisa iska jirtay marka ilaahay u duceeyo insha Allah intii dhimatay Allah u naxariisto ilaahay baa ugu talagalay wixii waxaas waxaynayana kulli ilaahay waa daawanaya maalin baa la iska jaraya ma ahan inaan loo jeedin ma ahan waxa waa la daawanaya dadkaasna ilaahay jannatu firdawso ha ka waraabiyo gabar iyo ninkeed baa ku dhintay oo hooyay gabadheed baa ku dhimatay oo dad saaxiibaha ku go'ay oo walaalaha ku go'ay la ilaaha illa allah ilaaha u naxariisto marka asxaabay u soo duceeyay wadankeeni maalin kasta waxa la taagan yahay waa maalin madow maalin cad ma jirto maalin kasta waxa la balaag daylamaya lagu jiraya soo ilaahu rabbiyo ku baryana intaasoo islaamku kale duceeyaan ducadooda waa la aqbalayaa dadkan dhiiga islaameed iska banaystay ilaahu meel nooga dhig rabbiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh